taxanaha qaybta labaad ee haykalka siyaasadeed ee Soomaaliya waxaan uga warrami doonaa sharciga Soomaaliyeed ee aan baahsanayn ee siyaasadda kaas oo aan la isla wada qabin ama qabyaaladaysan. anigoo Cabdiqaadir Maxamed ayaa idin la socodsiinaya sharciga Soomaaliyeed ee aan baahsanayn ama la isla wada qabin. Soomaalida da'da yar ee ka hooseysa 30 jirka ma haystaan wax aqoon sare ee ku saabsan haykalka dimuqraadiyadda taas oo jiri jirtay kadib xorriyadda iyo ka hor inta aanu dhicin afgambigii isbedel doonka ee military ee uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre 1969 inay libka gaaraan guul ay xorriyaan inay libka gaaraan guul ay xorriyaan xiligaas oo uu madaxweyne ka ahaa wadanka Cabdirashiid Cali Sharmaarke laakiin markii uu dilkiisa dhacay ayaa xukunka waxa la wareegay taliska militariga Soomaaliya kaas oo dhisay jamhuuriyad sal adag ee awood ku leh Afrikada. go'aamada iyo arrimaha siyaasadda ayaa ahaa kuwo xadidan oo aanan ku jirin wax faragelin shisheeye laakiin ay socotay hagardaamo iyo qorshayaal taxane ahaa ee loogu dan lahaa inay Soomaaliya maalin u noqoto xaaladda imika aynu ku jirno oo federaalka iyo askunka madaxweynayaal fara badan ee ka araminaya dalka Soomaaliya. Galiliyooda maanto gadalaaba maayaan goonkooda wuxuu yahay sida caadiga ah siyaasadda Soomaaliya ayaa loo hogaamiyaa qaab dimuqraadiyadeed inkastoo haweenka aysan qayb ka ahayn ama awood ku lahayn siyaasadda Soomaaliya iyada oo loo kooxeynayo qaabka ehelka ama qabyaaladda taas oo qaraabada ka dhigaysa ama qabiilada ka dhigaysa xulufo iyo iska hor imaadyo abuura xasilooni darro waatan imika Soomaaliya ka jirta. shakhsiyaad xoolo dhaqato ah ayaa ku wada kulmay shirar halka xubnaha ragga ah ee ugu sarreeya qabiilada ama waxa loogu yeero ugaasyada ay raadinayaan isaf inta la qaadi lahaa codbixinta go'aano waaweyn ay ku gaareen gidi waxa isku raaceen inay geeriyo nolol ka go'aan rumaystaan maadaama rag badan ay odayaal noqon karaan hogaamintu badanaa waa ay adag tahay in la ilaaliyo muddo dheer. hanaanka sharciga aan baahsanayn ee noocan ah halkii laga yigleeli lahaa hanaan sharci ee baahsan ee bulshada Soomaaliyeed dhaqankani ma ahan dawlad dhexe ama xafiisyo siyaasadeed ee gaar ah ama hogaamiyayaal darajo leh waana tan sababtay in la abaabulo hanaan qaybsi siyaasadeed ee dadna lagu darajo dhimay kuwana lagu sarreysiiyay ee 4.5 ama 4.5ka. qaybta labaad ee haykalka siyaasadeed ee baahsan ee Soomaaliya halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa. inta taxanaha xiga ee qaybta saddexaad aynu ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo. Soomaaliya oo midooda oo ay noqoto Soomaaliyada cusub ee go'aan ka qaata masiirkooda nolosha iyo mustaqbalka.